gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ee lagu muransan yahay Maxamed Xasan Maxamed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay muranka ka taagan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Gudoomiyaha ayaa wax laga weydiiyay su'aal ku saabsaneed in xubnaha guddiga ay ku jiraan xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, waxaana ku jawaabay in aan loo eegin xubnaha guddigan ka tirsan shaqadii ay hore u qaban jireen ee lagula xisaabtamo shaqada hadda loo xil saaray. markaan ka hadlayno guddi doorasho ayaan ka hadlaynaa. guddi doorasho waxaa lagu sameeyey nidaam heshiis qaran oo dhacay 17 Sebtembar 2020 kaasoo ahaa in la sameeyo guddi maamula doorashooyinka oo heer federaal iyo heer maamul goboleed kaasa markaa waxa ku astaysnaa shuruudihiisii. marka guddiyada hadda dhisani waa guddiyo qaran qofku meesha kasta uu ka soo shaqeeyay ee uu hore uga soo shaqeeyay iyo way kala duwan yihiin inuu hadda guddiga yahay. marka hadda guddiga hadda dhisan waxyaabaha waajibaadka ah waxa weeye waa inuu ka fayow yahay inuusan murashax u iilan. waxaa jira xeer hoosaadyo qabanaya qofku intaa in leeg oo xadguduba oo ku saabsan in uu sameeyay musuq ama in uu sameeyay kala xigsasho ama inuu cid garab siiyo. haddii waxyaabo saas uu ku kaco waxaa jira xeerar qabanaya oo u degsan shuruucda doorashada. geesta kale gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay Maxamed Xasan Maxamed ayaa sheegay in dhawaan ay soo saari doonaan jadwalka doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. heer maamul goboleed leeyahay waa guddigii banaadiriga, kuwii gobolada waqooyi, kuwii galmudug, kuwii hirshabeelle iyo kuwii maamulka koonfur galbeed. waxaa naga maqan kuwii Puntland iyo Jubbaland, iyaguna insha Allah markay yimaadaan ayaa tababarkooda loo sameyn doonaa. waxaa ilaa hadda dhamaystirmay hanaankii iyo qorshayaashii doorashada hadday ahaan lahayd hawlgalkii, hadday ahaan lahayd xeerarkii guddiyada. waxaa sidoo kale isna dhamaystirmay habraacyadii hadday ahaan lahayd qaababka musharaxiinta loo diiwaan gelinayo, qaababka dadka codka bixinaya ee 101 qof ahi ay u cod bixin lahaayeen ama loo diiwaan gelin lahaa, sidoo kale odayaasha iyo ururada bulshada rayidka ah. intaas kadib marka waxa uu hadda noo dhiman in la sii daayo jadwalkii iyo waqtigii doorashadu ay bilaaban lahayd kaasoo isaguna diyaar noqon doona maalmaha inugu soo aadan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda dawladda ugu baaqay inuusan dalka galin xaalad dastuur la'aan. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiraya faahfaahinta. xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo qoraal u diray madaxweynaha iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la socodsiiyay in muddada dhaqangalka dastuurka ku-meelgaarka uu la dhamaanayo muddo xileedka baarlamaanka 10aad isaga oo ka digay in dalka uu dastuur la'aan noqdo. xasan sheekh ayaa kula taliyay madaxda dawladda inay qaadaan talaabooyin lagu xeerinayo oo looga hortagayo in dalka dastuur la'aan noqdo. sidoo kale wuxuu ugu baaqay baarlamaanka labada aqal inay wadajir iskugu yimaadaan oo ay qabtaan shir degdeg ah oo loogu arinsanayo dib u eegista ansixinta kama dambaysta ee dastuurka oo ay waajibaadkaasi ugu dambeeyaan baarlamaanka 11aad sanadka 2021 iyo afti dadweyne oo loo qabta dastuurka. haddii dalka uu dastuur la'aan noqdo waxay horseedi kartaa xaalad halis ah iyadoo ay istaagi doonaan dhammaan heshiisyada ay Soomaaliya kula jirto caalamka, sidoo kalena uusan jiri doonin sharci kala haga dalka, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrintan ayaa waxaa ka jawaabay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kadib kulan uu maanta la qaatay guddiyada dastuurka u qaabilsan qabyaatirkiisa. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in howlaha qabyaatirka dastuurka dalka loo gudbiyay baarlamaanka soo socda ee 11aad isla markaana hanaanka loo marayo gudbintan iyo meelmarkiisa ay ka wada tashan doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. qodobka koowaad dib u eegista dastuurka in loo gudbiyo baarlamaanka soo socda ee 11aad. qodobka 136 ee aftida dadweynaha asagana in dib loo dhigo habraaca dastuurka lagu ansixin lahaa oo guddigu ay soo jeediyeen oo ay yiraahdeen si maxaa la yiraahdaa loo xafido ama loo ilaaliyo ama aan u dhicin juhdigii faraha badnaa ee guddiga ay bixiyeen in meel cidla uu ku dhamaado ansixinta habraacaasi in ay muhiim u tahay. marka uu yimaado baarlamaanka 11aadna ay sahal noqonayso in
meel laga bilaabo ay jirto marka ani waxay la tahay baarlamaanka waa iska taqaanaanay mararka qaar mashquulka iska batay laakiin dadaal naguma yareen inkastoo saaxiibada qaar ay soo jeedeen oo ay leeyihiin in mas-uuliyadda la wada qaadaa fiicneed oo baarlamaanka keliya kuma filneen oo xukuumadda iyo ilaa madaxweynaha in culays la saaray ahayd haddana waxaan qabaa meel fiicana lasoo gaarsiiyey mar haddii keliya ay dhiman tahay qodobadii siyaasadda un ay dhiman yihiin kuwii kale oo dhan guddiga ay soo diyaariyeen labada aqal ay wada fadhiistaan oo markaasi si wada jira ay uga gudbaan ayay ku habboon tahay intaanan dhihin golaha shacabka keligiisa fadhiisto dhowrkan qodob ka shaqeeyo inaan marka hore isku dayno ka guddoon ahaan in guddoonkii kale oo aqalka sare aan la kulanno oo aan u jeedino muddada noo harsan aaday u yartay maanta waa 13 filaa 27 ka hor waa in hawshaasi ay naga dhamaato markaa dastuurka dalka ayaa qabiitarkiisa waxaa la doonayay in la soo gabagabeeyo dabayaaqadii sanadkii 2019 ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo al-shabaab ayaa maanta ku dagaalamay degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Axmed Saadiq Cabdulqaadir Yarow howlgallo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay ku burburiyeen fariisimo ay lahaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab deegaano ay ka mid yihiin Kurta Dhuray iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool howlgalkaasi ayaa waxa uu ka dambeeyay sida la ii xaqiijiyay in dagaal maanta uu ka dhacay deegaano hoostaga Rabdhuure oo ka tirsan gobolka Bakool ciidamo gurmad u ahaa shabaabna ciidanka xoogga dalka ay wadada u galeen sida darteedna dagaalka uu ku dhacay abaanduulaha ururka 260aad guutada 9aad ee laba xidigle Isaaq Maxamed Ibrahim ayaa warbaahinta la wadaagay howlgalladii maanta ay ka sameeyeen deegaanada Dhuray iyo sidoo kale Kurta ee hoostagta degmada Waajid ee gobolka Bakool diyaarin markasta in isula dagaalama ururka nabadiidka al-shabaab oo dhanka soo ugus oo muddo dhibaato hayaan meel kasta dhibaato ka hayaan waliba howlgal ka soo banay ilaa iyo meel row Kurta Dhuray oo marna ka taalan wadada oo aan dhahayta Waajid iyo Baydhabo waliba markasta diyaarana in oo nahay adowka meel kasta rogan kala dagaalana oo muddo dhibaato ka hayaan ku korgaadna marka howlgalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ma ay ko hadda meel raashin taga surmow ilaa iyo ururka nabadiidka duurka jiraan waliba diyaarinayna in ay markasta la dagaalagna oo afjarna dhamaantooba kulay insha Allah dilaaheer kulay shacabka oo deegaanada koonfur galbeed iyo gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waliba aan ka baagay in ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed garabka siiyaan sidii oo la dagaalamo lahay ururka nabadiidka al-shabaab maadaama iyo ka dhumbaleysa hayaan dadka shacabka deegaanada oo baadida iyo aragayaan markasta meel kasta iyo halku maleegayaan mise dhibaato kasta iyo hawidaan yoon waliba aan ka baagay in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markasta la xiriiraan oo adowga hogtisan sheegaan maadaama adowga hadii marna garab gala oo ciidan shacab israhan adowga jabowshay marna fududi marka insha Allah hadii la yar kulliba guutada 9aad kulliba siisin la sootan waliba jareed dagaal oo ku dareeran meelo la roo quraajom iyo durmeel dhahayta wali dagaalkaasi meel raayis ururka nabadiidka waliba hogtaatan in shaqayn oo hayo midid bad ilaa iyo kontumay oo maleeshiyaadka meelasi ka nafwaaya oo meel garas la roojiyeen meel badanna video lana ku shaqayn oo ka duugahayaan anuna saaso kala waliba meel raayis dabagalka hayna ururka oo marna meelasi gurmudkan ama marneedo dhibaatadii ugu deertay injeedan marka insha Allah hadii la yar kulliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markasta la guuleysada shacabka Soomaaliyeed oo la guuleysada adowga halan simanaaday si oo wada jira gaamada jiralka go'aan si oo wada jira Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Saadiq Radio Kulmiye Baydhabo ciidamada booliska Soomaaliya ayaa qabtay shakhsiyaad ku eedeysan inay ka dambeeyeen hilibka dameeraha oo lagu iibiyo suuqyada degmada Boolaburte ee gobolka Hiiraan Ismaan Aadan Carays ayaa ka soo waramay Beledweyne taliyaha saldhigga degmada Boolaburte Cabdi Ndabuur oo la hadlay warbaahinta KNN ayaa sheegay howlgallada ay saag ka bilaabeen gudaha degmada Boolaburte inay ku guuleysteen ay gacanta ay ku soo dhigaan dhowr rag ah oo iyaga lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyaan gowraca dameeraha lagu qalo degmada Boolaburte wuxuuna sheegay baaritaan haatan ay ku guda jiraan
balse ay ka hordhici doonin maruu la hadlayay keeneen wuxuu yidhi maanta waxaa dhacay arrimo aad u qasha magaaladana qalqalgeliyey oo sida muxuu ahaa maadaama ay dad islaam ah waxyaabaha aan xalaasha iyo xaaraanta u kala soocan yihiin maanta in dameero lagu arko magaalada qolan bareeyey lagala baxay hilibkii laga gurtay sida dibanka iyo meelihii hilibada jiilka inta badan ay kala baxeen lala bareeyo sidii neef ariga loo bareeyey ayaan suuqa lagu arkay bulshadiida subaxan iyo muxuu ahaa badood badan oo aaminsan yihiin in loo geeyey kawaanada ayaa maanta suuqaasa magaalada ka dhacay baaris dheer kadib annagu baarisaan daba galnay waxaan gacanta kusoo dhignay eedaysanayaal soo eedaysnaa aan isugu duhnay barnaamijkaas ay ka dambeeyeen oo 2 nin ah baaristaas socoto weli baariska ku jiri jirnaa hase ahaatee waxaan noo muuqdo shaqaalo fiican oo aan ummadda ka qarxi doonaan insha allah dirayda tallaabadani lagu gowracayo dameeraha ee ka dhacday degmada Buulo Berde ayaa saakay waxaa dadweynaha caraysan ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee degmada Buulo Berde kuwaasoo ka soo horjeeday dhibaatada haatan ku soo kor degmada Buulo Berde oo muddo ka badan 7 sano godoon ay geliyeen dagaalamayaasha al-shabaab. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta KNN, Beledweyne. maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa go'aan ka gaartay dacwad ay u gudbiyeen xildhibaano ka tirsan maamulkaas oo dhawaan laga qaaday xasaanadda. Hanad Maxamed Karama ayaa dhamaystiraya. maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa galabta go'aan rasmi ah ka soo saartay kiiska 8 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaas kuwaas oo xasaanadda laga qaaday 3 bishan December. waraaqad ka soo baxday maxkamadda sare ayaa lagu cadeeyay inay sharci tahay xilxayuubintii lagu sameeyay 8 xildhibaan ee kala ah Cabdijamaal Cismaan Maxamed, Saleebaan Faarax Ciise, Cabduqani Abshir Jaamac Surato, Cabdiraxmaan Maxamed Maxmuud Dhoore, Muuse Saciid Xasan, Maxmuud Maxamed Bare, Abdicasiis Saciid Maxmuud Baduugaaye iyo Maxmuud Axmed Caalin. maxkamaddu waxay amar ku bixisay inaysan baarlamaanka dib dambe ugu soo laaban karin xubnahan kor ku xusan isla markaana si degdeg ah loo diyaariyo bedelkooda maadaama dhammaantood ku cadaatay eedenaha loo soo jeediyay sida ku xusan waraaqada. sidoo kale maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xubnaha xilxayuubinta lagu sameeyay ay magdhow ka bixiyaan qalab kala duwan oo waxyeelo soo gaarsiiyeen waxaana go'aankan ku saxiixan dhammaan 5 xubnood ay ka kooban tahay maxkamadda sare ee Puntland. kiiska xildhibaanadan ayaa la dhageystay maalintii Khamiista oo taariikhdu ku beegnayd 10 bishan December waxaana jirtay cabsi ay muujiyeen xildhibaanadan kor dhageysiga dacwadooda taa oo ku aadan in aysan ku kalsooneen garsoorayaasha maxkamadda sare ee Puntland. garsoorayaasha ayay ku tilmaameen inay u shaqeeyaan madaxda sare ee maamulka Puntland isla markaana aysan ahayn kuwa cadaalad wax ku xukumaya. waxa ayna sidoo kale eedeyn kulul u soo jeediyeen gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland iyo madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Deni kadib markii ay sheegeen inay afduubteen howlaha baarlamaanka maamulka Puntland iyo sidoo kale shaqooyinka gudiyada. madaxda dawladda Kenya iyo madaxweynaha Somaliland ayaa ka wada hadlay in diyaaradda Kenya Airline ay ka shaqo bilowdo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Maslax Abubakar Xaaji ayaa warka magaalada Nairobi ka soo diray. madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqasho rasmi ah ku soo gaaray dalkani Kenya kadib casuumad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta. madaxweyne Biixi ayaa la filayaa in kulan toos ah uu la qaato Uhuru Kenyatta ayna ka wada hadlaan arrimo muhiim ah oo labada dhinac isaga xiran. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in Biixi socdaalkiisa uu la xiriiro adkeynta xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo Kenya waxaana si gaar ahaaneed ay diiradda u saareen in wada hadallada ay quseyn doonaan kobcinta ganacsiga ka dhaxeeya labada dhinac, arrimaha ammaanka gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab iyo sidii guud ahaanba gobolka ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarkiisa. sidoo kale mas-uuliyiintan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa waxa ay warbaahinta u dusiyeen xog ku saabsan in ay jiraan wada hadallada dhinaca Somaliland in ay aad u daneynayaan in diyaaradda Kenya Airways ay samayso duulimaadyo toos ah oo isku xiraya magaalooyinka Nairobi iyo Hargeysa. socdaalka madaxweyne Biixi ee Nairobi ayaa ku soo aaday xilli aad u xun yahay
xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo dowladda Kenya waxaana dadka darsa arrimaha siyaasadda ay u arkaan booqashada Muuse Biixi ee dalka Kenya inay tahay ujeedo gaar ah oo dowladda Kenya cadaadis siyaasadeed ay ku saareyso dowladda federaalk Soomaaliya oo go'aano culculus oo isdaba joog ah ka qaadatay xukuumadda Nairobi. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. taliska booliska Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa magaalada Muqdisho waxa uga furmay shir looga hadlayo amniga doorashooyinka Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shirka guddiga amniga doorashooyinka qaranka 2020-2021 shirkan oo muddo 3 maalin ah socon doono ayaa waxa lagu falanqeyn doonaa amniga doorashooyinka gaar ahaan qorshayaasha la soo diyaariyay sida nidaamka maamulka miisaaniyadda iyo tababarada ciidamada ee sugi doona goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka sidaas waxa sheegay afayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali looga arinsanayo amniga diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2020-2021 taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu ku soo sameeyay dowladaha qaarkood dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ugu soo koorgalnay sida uu yahay diyaar garowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2020-2021 shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15 bisha hadii Ilaahay yiraahdo halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir ciidamada AMISOM police iyo military dowladaha saaxiibada nahay beesha caalamka iyo institutionada dawliga oo kamid yahay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal ifeet oo xubnahooda dhamaantood guddiga ay goobjoog ka ahaayeen insha Allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo diyaar garowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaar garoobo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodla ay u dhacdo diyaar garowga ugu wanaagsan shirkan qodobada ka soo baxo ayaa waxa lagu hagi doonaa qabsoomida doorashada guud ee dalka kaasi oo la doonayo in si nabadoon ah ay u dhacdo halkani waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho u diyaar garooba wararkii dibadda dagaal u dhaxeeya wadamada Armenia iyo Azerbaijan ayaa mar kale ka qarxay gobolka Nagorno-Karabakh dalalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa mar kale waxa ka dhex qarxay dagaal kadib muddo bila oo lagu naaloonayay heshiis ay wada garwadeen ka ahayd xukuumadda Ruushka oo labada dalba ay wada saxiixdeen wasaaradda difaaca ee wadanka Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in militarigeedu ay weerareen ciidamada wadanka Armenia kadibna labada ciidan oo dagaal dhex maray gobolka dalkaasi ay ku muransan yihiin ee Nagorno-Karabakh xukuumadda dalka Armenia ayaa sheegtay in 6 ka mid ah militarigeedu dagaalkii maanta ay ku dhaawacmeen inkastoo aanay dhimasho sheegin dowladda Armenia hadda waxa muuqanaysa gobolkaasi inuu mar kale cagaha la sii galayo dagaal qaraar dhinaca kale dowladda Azerbaijan ayaa waxay sheegtay in dagaalkii maanta ay kaga dhinteen 4 askari kadib markii ay dagaal dhex maray labada dhinac